السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبنا نوgu xiran waxaa maanta si toos ah u qaadaa dhigaynaa qodob yaab leh oo runtii magaalada muqdishona ka jira dad badanna naftooda halis geliyey qaarna ay u dhinteen nimankii shabaabka ahaa oo bilaabay bartilmaameedsi dadka guryahooda ah qaababka ay isticmaalayaan sida gaarka ay u adeegsanayaan dad aadan ka fili karin ha noqdo qof baahiyaha gaarka qaba ha noqdo hooyada ah dhowr qofood oo kala duwan oo laakiin meelaha dadka aysan markiiba shakigu ka gelaynin ayay bartilmaameed ka dhiganayaan shakhsiyaadka ay sida gaarka u isticmaalayaanna waxaa ka mid a dad aadan markiiba malaysan karin haddaba sida ay suuragal u noqotay sida ay u dhacday arrintan ayaa isla qaadaa dhigaynaa iyo xitaa saraakiisha laamaha amniga arrintan sida ay runtii aad walaaca ugu abuurtay degmooyinka yaaqshiid hilwaa iyo degmooyin kale oo gobolka banaadir ka tirsan ayuu howlahan aad uga socdaa si aan haddaba wax dheeraada uga faahno arrintan waxaa barnaamijkan ila falanqaynaya weliye rugcadaa ah saaxiibkay zikriye maxamuud timcad zikriye soo dhowow zikriye waxaa sharaxaad naga siisaa qaabka madax jibinta magaalada ay uga bilaabatay dadka aan la filaynin oo nimankan ay bilaabeen inay adeegsadaan haweenka noocyada dharka ay isku ekeysiiyaan iyo waxa ay dadka markay guryaha u galaan weydiinayaan bal sharaxaad kooban oo arrintan muujinaysa haddaadna sii kartid zikriye soo dhowow waa maasan tahay munasar iyo saaxiibada ku xiranba ciwaanadaada kala duwan toddobaadkan iyo labadii toddobaad ee ugu dambeysayba qaabka kooxaha shabaabka gaar ahaan amniyaadkooda ay ugu howlgalaan magaalada muqdisho waxaa la sheegay marka hore inay bedeleenba horta ilaa taatikada koowaad oo ay bedeleen waxay noqotay in magaalada muqdisho raggii amniyaadka ee la yaqaanay ee ragga qaar ee nabad sugidda soomaaliya isgaran karaan oo dhan marka hore magaalada ayay ka saareen si markaa bartilmaameedyo markay geystaan dilal geystaan amaba qorshooyin ay doonayaan si aan loogu hortegin tusaale haddii nin niise ka tirsan oo horeyna shabaab ugu tirsanaa iyo nin horey isla soo barteen madax jibinta haddii laisku arka suuqa baqaaraha waa lais aqoonsan karaa daaswaa waxay sameeyeen marka dhalinyaradii amniyaadka ahaa ayay ka saareen magaalada muqdisho oo dhan waxay keeneen dhalinyaro cusub oo aan la aqoonsan karin qaarkoodna waxaa la sheegay in dhalinyaro aan caadi ahayn ay ka wada qorteen duleedka muqdisho raggaasoo marka garan karo magaalada muqdisho luuqluuqyadeeda ilaa iyo suuqyada kala duwan meelaha marka hadda ugu daran oo maalmahan wejiyo cusub lagu arkay waxaa ka mid a xaafadaha sonokey oo ka tirsan degmada hodan toddobaadka ugu dambeeya sheeke ahayd waxaan ka sameeyey hooyo weliba da ah ilaa 2 jawaan iyo dhar wasakh wadato horey sheekooyinka dumarka sirdoonka ah dunida waa lagu yaqaanay xitaa waxaa isticmaashay dowladda soomaaliya sida caadiga ah laakiin shabaabku inay isticmaalaan dumarka da'da ah way ku soo badanaysaa magaalada muqdisho qaarkood iyagoo tuugsanaa laga dhigaa qaarkood ganacsiyo kala duwan xitaa hadda waxay bilaabeen dumarka nadaafadda ka shaqeeya guryaha waxaa jirta gabar hadda ku xiran laanta dambaarista soomaaliya ee la rajeynayo maalmaha soo socda in loo gudbiyo maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaa la sheegay gabadhaas inay ka tirsaneed qaybta sahminta sirdoonka ee la shaqeyso shabaab sheekooyinkaas marka dadka marka in la bedelo wejiyo cusub in la keeno way soo badanaysaa tusaale in raggii madax jibinta magaalada muqdisho jooga la saaray rag cusub la keenay qaarkood weliba duleedka muqdisho aad loogu qortay sababta keenaysa in ciidamada dowladda nabad sugidda ee howlgalka ugu badan ka sameeyaan duleedka muqdisho waxay noqotay in dhalinyaro badan oo soomaaliyeed oo duleedka ku noolaa siiba dadka waxaa ugu badan hadda oo ay farta ku godan tahay dadka duleedka muqdisho aad u degan xaafadaha isku raranka waa dhalinyarada hadda ugu badan ee shabaabku ay qorteen waa taa marka sababta keenayso in ciidamada dowladda habeen kastaba ee duleedyada muqdisho howlgalla ka sameeyaan in wejiyada cusub ay bedeleen shabaabkan waxaa keenayso nabad sugidda soomaaliya waxay samaysay horumar dhanka la taaban kara ammaanka taas oo ahayd in dharcad badan oo ay ku daadisay suuqyada kala duwan markii lagu daadiyey suuqyada kala duwan raggii horey shabaabka ugu imaaday ee sirdoonka ka tirsanaa iyo raggii madax jibinta ahaaba waa lais aqoonsan karaa taas waxay keentay marka in wejiyo cusub la keeno marka zikriye waxaan rabaa inaan fahanno dabcan dadkan dad cusub ay soo gashtay magaalada waxaa jira haween da ah oo aan laga filaynin dad xoogaa baahiyo gaarka qaba oo guryihii toos u soo aadaya farsamooyinka isticmaalaya waa on la yaab waxaa ka mid a albaabay garaacayaan waxay leeyihiin waxaan u socnaa inaan dhar ku dhaqno mararka qaarna waxay leeyihiin dumarka dadka hadda aan wareysanay inay leeyihiin ma joogaa jaamac yani qof ay raadinayaan oo jaamac la dhaho waaye laakiin xaafadana degan gurigaysan aqoonin marka jaamac ma joogaa dadkii marka waa iska daacad waxay leeyihiin qofkii aan baraarugsanayn ها جامع حافظ هبل وجوه حقه دقنية
marka qaabkan farsamadan see looga hortagi karaa adiga ma soo martay dhacdooyinka aad tabinaysayna qaab saan oo kale dadka cabanaya toddobaadkii hadda sii dhammaaday maadaama maanta ay sabdito waxaad soo galayso sheeko waxaan tabi ahayd hooyo soomaaliyeed oo waayeel ah oo raadinayso laba wiil oo walaalo ah kaamiradan qabatay iyadoo markaas ka dhigayso qof tuugsanaya albaabkay garaacday markay garaacday waxay weydiinaysaa hebel iyo hebel guriga ma joogaan habeenka marka subaxda sidaas ay samaynayso habeenkeeda waxaa soo weeraray raggaas rag la yaqaano amniyaadka shabaab ka tirsanaa oo kaamirada diidan meelaha marka ugu badan ee loogu guuleysan lahay waxaa ka mid ah saldhigyada dhalinyaradu waxay waceen saldhigyada kala duwan ee markaa talada amaba markaa hogaanka ee degmadaas haayo way ka gaabsadeen lama caawinin nabsugudiya waceen lama caawinin taas marka waxay keenaysaa in ragga madaxa jibiyo magaalada awood ay kusii yeeshaan haddii la waayo tusaale markii dadku dhibaato ay ku dhacdo waxaa la sheegaa in nambarka gaawan ee booliska 991 wacaa la dhahaa laakiin looma jawaabo haddii namarkaas hore laga jawaabo isla markii degmada dhibaatada ay ka jirto saldhigiisa la waco gaar ahaan waaxda xaafadda markaa la waco isla markii nabasugidda howlgalaan ragga la qabto la dilo dhibaato un meeshaas ka dhacdo waxaa yaraan lahaa haddii la dhibaateeya raggaas in dad kaamirada la dagaalamayo magaalada muqdisho in lagu arka laakiin inta dhalinyarada soomaaliyeed ee shaqada u diyaarsan inay iyagu markaa nidaamka dowladnimada ku shaqeeyaan u diyaarsan aan la shaqo gelinaynin inta nabasugidii oo dhan haddii lagu qoro qaab qabiil booliiska sidoo kale haddii xilalkii darajooyinka noocaas la isku siiyo waxaa yaraan doona marka in la helo dhalinyaro soomaaliyeed oo ay ka go'an tahay in shaqada ammaanka ay qabtaan way soo marka kiisaska noocaasa aad iyo hadda muuqaalada aan arkayna oo dhinaca kale ka socday ciidan booliis oo baaritaan wada waayay dabcan meelaha oo public ah oo dadka aad u joogaan ama ilqabad kale ayaa baarisaan oo kale ku socda ma isleedahay marka hadda saan oo kale hadda muuqaalka aan daawanin oo kale ayaa ammaanka xaqiijin kara hawsha loo baahan yahay tan miya mase waxaa isleedahay kuwa banaanka waxaa lagu aamusinaa oo keliya toddobaadyadii lasoo dhaafay dhibaatooyinka ka dhacayo magaalada oo kala duwan waxaa lagu aamusinaa oo la tusaa oo kaamirada loo soo qaatay in hool ay ka socoto laakiin caawa haddii la tago suuqa xoolaha iyo daynira iyo hilwaa howlgalka ma jiro ciidan wadadan hadda aad ujeedaan waa wadada faris magaalaha shaqaalaha ilaa iyo dabka waxa baaritaanka lagu sameynayo oo gaariga hoostiisa la galayo laakiin howshan waxaa looga baahan yahay labada duleed labada ex control afgooy ex control balcad waa labada meel ay ka soo galaan shabaabka ragga qaraxyada wado ragga dhibaatada geysta laakiin gudaha caloosha magaalada iyo madaxtooyada ereyadeeda amaan lagama sugi karo marka hore waxaa laga soo bilaabaa duleedyada si magaalada ay nabad u noqoto laakiin haddii gudaha la baaro oo warbaahinta loo soo bandhigo oo lagu aamusiyo howlgala la sameeyey taas ma noqon karto in ammaan lagu xaqiijiyo muhiimadda dadka shacabka aan rabnaa zikriyo muhiimadda inaan bal aan fariintan ay wacyigelina noqoto maxaa la gudboon dadka ku nool magaalada meelahaas hadda aan sheegnay ee dumarkaas ay ka xeeladaysanayaan basaasiinta ah iyo raggan aan laga filaynin marka hore munasar waxaa aad u yar shacabka kalsoonida ay ku qabaanba laamaha kala duwan ee ammaanka waxaa la arkay dad xogta shabaab bixiyey oo iyaga xogtooda la helay oo la dhibaateeyey qaar dalka ugu soo cararay oo ilaa yurubta imaaday marka hore marka waa in la wanaajiyaa xiriirka bulshada iyo laamaha ammaanka ka dhexeyn kara oo ah markii muwaadinka soomaaliyeed uu arko xog ku saabsan khatar amni oo uu la xiriiro booliiska soomaaliya marka hore horta waa in qofkaas damaanada ammaankiisa la ballanqaado tusaale yurubtan waxaa jirto markii xog ammaanka ku saabsan qofka uu helo isla markiiba booliisku wargelinaa waxaa jira marka laba ab oo adiga dhan shakhsiyadaada sheegaya munasar nolosha macnaha tusaale inaad munasar tahay adrees gurigaada waxaa dhan sheegaya iyo ab qarsoodi ah abkaas qarsoodi wuxuu ilaalin doonaa taleefankaaga magacaada adreeskaada gurigaada intaas oo dhan wuu ilaalin doonaa shaqadana boolisku way qaban doonaan waxaa aad u yar kalsoonida shacabka ay ku qabaan booliska ilaamaha kala duwan haddii marka booliska ay dhankooda adkeeyaan shacabka waxaa laga heli karaa xog kasta oo ku saabsan oo amniga tusaale yar habeenada ka mid waxaa jirtay wado gaari qarax la soo dhigay dadkii soo dhigay qaybo ka tirsan baxsaday raggii qaar ee xaafadda degnaa haweeney weliba aan u malayn karo hooyo ayaa ila soo xiriirtay dabadeedna waxa uu sii gudbiyey laamaha kala duwan ee amniga habeenkaas waa lagu guuleystay howlgalka baabuurkaas oo aan qarax ka dhicin sidee marka hooyada soomaaliyeed inay wariyaha raadiso maxaa ku kalifay
sababtoo aniga waddanka ma joogi xogteedana ma bixinayo kalsooni iga qabtaa marka la joogo xaaladda waddanka haddii marka hooyadaas kalsoonida booliiska ay siin lahaayeen qof kasta oo muwaadin kasta oo soomaaliyeedna sidaasoo kale marka xogta uu siin lahaa booliiska laakiin ayaga naftigood inuu culays ku badan yahay oo ay dadaalayaan marka la fiiriyo dadkan mogtahay qof u soo baxa inuu balaayo geysto ina ilaalisid waqti iyo dadaal badanna u baahan tahay waxaan ognahay duruufo adag inay ciidan ku shaqeeyaan marka ma loogu garaabi karaa dhinaca dhaqaalihii askarigii oo wareersan gurigiisii oo aan maaragtay xitaa dab isagoo laga shidanin uu magaaladii ku maqan yahay weli amni u shaqeynayo asagii naftiisa uusan haysanin wuxuu ku casheeyay ama ku quraacday ama uusan quraacaninba marka duruufahaas ka waran sabab ma u yihiin waxaan socda mas-uuliyadda ugu weyn ee taas waxaa qaadanayo madaxda soomaaliya halka waayahan dambe oo baarlamaanka soomaaliya uu aad ugu doodaya in mishaarka loo kordhiyo waa taa marka sababta keenaysa askari baahan ammaan ma sugi karaa waa may waa marka hore in baahidiisa la xaqabtiraa sababta ugu weyn ee shabaabka qaraxyada marka la qabto waxyaabo kala duwan oo ay usii deeyaanba ciidanka waxaa ka mid ah baahida askariga inaan la buuxinin marka hore haddii baahidiisa la xaqabtiro waxaan hubaa 100% amniga inuu wax badan iska bedeli karo laakiin askari baahan inta uu ammaanka sugaayo ammaanka ma sugna soomaaliya zakariya maxamuud timacade wariye soomaaliyeed oo aad taqaanaan ayuu kaasi ahaa waxa aan ka hadlaynay dhibaatooyinka iyo xaaladaha magaalada kasoo cusboonaaday iyo weliba kooxaha bastaaska loo yaqaano ama xuuraanka si kale haddaan hadal ku dhigno ee magaalada ay kusoo daadiyeen kooxdan diidan in ummadan soomaaliyeed ay horumar iyo baraare gaarto waxaa kaaga mahad celinaa zakariya sida uga soo qayb gashay barnaamijkeenan aan ugu talagelayno inaan dadkeena sida ka duwan sida facebook aan ugu soo gaarno bartan youtube-ka oo muuqaaladan gaarka aan usoo gudbino sidoo kale saaxiibeel waxaan rabaa inaan idinku wargeliyo zakariya naftigiisu waxa uu leeyahay youtube idinkan inaan ku biirtiin waa idinka codsanaa inta nagu xiran salaamullahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu zakariya aad u mahadsantahay